wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka, dhammaan wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada, hay-adaha kala duwan, martida sharafta leh, waxaan dhammaan idinku salaamaya salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaan kabacdi waxaan rabaa inaan mahad gaara u celiyo wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland sida diiran iyo habsamida leh uu inoo soo dhoweeyey iyo qabanqaabada iyo habeynta shirka kan uu u socdo. aad baan uga mahad celinaynaa. haddii aan u soo noqdo stabilizationka arrintiisa, sida hore loo sheegay ama qof walba uu dareemi karo, stabilization waxaa ka horeeya xoreyn layskuma hayo. marka hore xasilin, hadda meel marka la xoreeyaa xasilin iyo laga fikeri karaa, laakiin inaan ka hor dhacno oo aan sii diyaar garowno waa wax loo baahan yahay. fursad bayna noo tahay haddii aan nahay koonfur galbeed iyo Jubbaland inaan ka faa'iidaysano casharadii laga bartay gobolladan shabeellooyinka ama hirshabeelle iyo galmudug, halgankii ay galeen phase 1kii, guulahoodii iyo dhibaatooyinkay la kulmeen. inaan cashar ka barano waxay noo tahay wax weyn oo muxuu ahaa aan qiimeynayno. waxaa kaloo meesha ku jira sida shalayto uu madaxweynaha Jubbaland uu ka hadlayay, waxaa inoo dhexeeya farqi weyn marka loo fiiriyo koonfur galbeed iyo Jubbaland iyo phase 1kii gobollada muxuu ahaa ay ka bilowdeen ee ahaa hirshabeelle iyo galmudug. waxaa noo dhexeeya farqi weyn. sida madaxweynaha uu sheegayey, waa maroo bulshada ku dhaqan gobolladaas waa dad hubaysan, muxuu ahaa bulsho ahaanba aan hubkoodii laga qaadin oo shabaab aan maaqan si weyn u dhexgelin. laakiin marka loo fiiriyo gobolladan koonfur galbeed iyo Jubbaland, bulshadii ma hubaysna. waxaa adkaanaysa marka bulshadii inay taageero ay bixiyaan ama ay ciidankii ay ku taageeraan halgankan. dad aan hubaysnayn oo shacab ah siday dagaal u galaan kuley way adkaanaysaa. farqigaas weyn baa jiro horta oo aan isleenahay sidii looga muxuu ahaa bixi lahaa in laga fikiro. ta kale locationka iyo gobolladaas waxaa laga yaabaa iyo gobolladeenan koonfur galbeed iyo Jubbaland inay ku kala duwan yihiin environmentiga. meesha tan waa gobollada kan waa gobollo muxuu ahaa aad ay ugu badan tahay dhirta oo muxuu ahaa ay adag tahay si loo dhex galo. meel furan oo bannaan waa ku yar yihiin. okay, taas nafteedu waxay keenaysaa dhibaatooyin badan oo u baahan muxuu ahaa in laga fikiro inta aan la gelin halgankan oo xoreynta intaan la bilaababa in laga fikiro. waa marka ujeedkay wuxuu yahay waa ka duwannahay koonfur galbeed iyo Jubbalandba, gobolladii shabeellada muxuu ahaa hirshabeelle iyo galmudug. marka diyaar garow waxaan looga baahan yahay aada u weyn oo saameynaya meelahaas oo dhan. waanu ognahay muxuu ahaa waxyaabaha imaan doona, ma sahlanaan doonto sida jiqdan iyo muxuu ahaa dhulkan aan bannaanayn si looga saari lahaa shabaab ma sahlana. iyo weliba iyagoo ku xididaystay meeshan oo ka samaystay saldhigyo waaweyn oo warshadaha la sheegayayba ay ku yaaliin muxuu ahaa gobolkan laga helayo. marka ma sahlanaan qabaa sida looga saaro. marka diyaar garow gooniya ayaan u baahannahay labadan gobol inay muxuu ahaa dowladda federaalkuna ay la socoto. koley waa hubaa inay ogyihiin dhibaatooyinka ka jira meeshan. annaga gaar ahaan inaan isku tashanno oo gaar ahaan labadan gobol oo soodinta lahoo isdhex gala inay muxuu ahaa ay si aada oo ka duwantii facekii hore phase 2ga kan loo abbaaro. marka taas baan ku talinayaa. insha allah waanu ku guulaysan doonaa ilaahay idinkiisa. halgankeenna horaan u bilownay annagoo muxuu ahaa diyaar garowgan markii phase 1ka uu bilowdayba waxaan ku jirnay diyaar garowga phase 2ga. waa arrin muxuu ahaa casharadii laga bartay halgankii horena waa ka faa'iidaysanay. hay-adaha muxuu ahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradaheeda
si tooska ah ay u khusayso ay ka mid yihiin adeegyada kuwa bixiya kulligood waxay muxuu ahaa iyo partnerskaba waxaan samaynaynay weekly muxuu ahaa inaan meeting aan samayno oo aan ka fikirayno hawayga ugu fiican ee loo approach garayn karo marka waxaan filayaa shirkan community inuu ka soo baxo arrin ku saabsan farqiga u dhexeeya goboladan iyo waajibaadka goonida ee saaran labada gobol ee phase 2 la geli doono iyo diyaar garowgiisa in community-gana uu ku jiro ayaan rajaynayaa insha Allah waa mahadsantihiin waxaan filayaa inaanu ku guuleysan doono halganka. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.